kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal gebi ahaantiinba halkani waa aayaha channel iyo Somali Radio TikTok ku soo dhawaada warbixin ku saabsan kalimadda yaa riixabi oo waayadani dambe social media qaasatan aaladda TikTok si waali ah ay ugu qorayaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Banaankan aad u jeedaan magaciisa waxaa la yiraahdaa Ghana waxaana lagu naanaysaa P wuxuu caan ka yahay gudaha dalka Mareykanka iyo caalamka oo dhan. dhawaan waxa uu soo saaray hees cusub oo lagu magacaabo Pushing P oo micnaheedu ay tahay kuma riixay P sidoo kalena fanaankani waxa lagu sheegaa in uu ka mid yahay ragga laga roonayaasha ay qoomuluudka sidoo kalena uu aad u taageero. heestiisa hadda si fiican u dhageysatid waxa uu aad uga hadlayaa kalimadda galmada iyo sidoo kale erayo anshaxumo ah oo sidoo kale aanan u wanaagsaneyn dadka muslimiinta ah. waxaan filayaa inaad ka mid tahay dadka dhawaan ku arkay kalimadda yaa riixabi oo lagu qoriyo commentska iyo live-afka aaladda TikTok weliba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo aan ka warqabin oo isku taageeraya kalimadani inay ku qoraan comment walba ama qof walba oo live saaran iyagoo kaga gol leh arrin guruubeysi ah oo dhalinyarada ay kaga waalayaan dadka kale. waxaa fikradani aaladda TikTok keenay wiil Soomaaliyeed kaasoo aad uga codsaday in dhalintu meel waliba ay ku qoraan yaa riixabi laakiin dadka qaar aysan fahansaneen sababta iyo halka kalmadani ay ka soo jeedo. haddii aad adigu ka mid ahay dadka la yaabanaa yaa riixabi waxaan filayaa inaad heshay faahfaahin buuxda halka ay ka soo jeedo kalmadani, balse dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa la gudboon in aysan qaadanin wax aysan ogeyn halka sal yaraad ay ku leeyihiin iyo sidoo kale waxay adeegsanayaan micnaheedu waxa uu yahay. haddaba warbixintani sheer leh oo gaarsii asxaabtaada kale inta ayaan ku soo koobayaa sida ay nabadgelyo.